Soo dhawaada asxaabta mar labaad iyo mar saddexaad. Sidaad ciwaanka ka arkayseen maanta waxaan doonayaa inaan idinku sharxo videogan sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Run ahaantii application-kan ayaan isticmaalaa aniga Pixlab la yiraahdo. Waana Pixlab application inaba aan caadi ahayn oo lagu sameeyo YouTube thumbnail. Dadka intooda badan way isticmaalaan application-kan. Marka application-kan waxaad ka helaysaa Google Play Store ama waxaan ku soo dhigayaa description-ka linkiga application-ka aad ka heli lahayd. Marka haddii aad isticmaalayso mobile waxaad ku samayn kartaa YouTube thumbnail aad u qurux badan, midkaas oo soo jiidan karo kumanaan dad. Marka haddii aad balse laptop ama computer isticmaalayso waxaad ku samayn kartaa YouTube thumbnail programmada lagu sameeyo video editing kuwaas aad u fiican, balse application-ka markay imaato application ahaan waa app-kan Pixlab lagu magacaabo mobile-ka. Marka hore application-ka soo furanaysa kadib text-kan delete ayaan dhahaynaa ma rabno hadda. Waxaad imaanaysaa haddii aad doonayso YouTube thumbnail saddexdaas dhibic kor geeskan dhinacaas kadib waxaad imaanaysaa image size meelay ku qoran tahay. Hadda waxay tahay custom ayay noo tahay. Kadibna waxaad ka sii raadinaysaa YouTube thumbnail waa kana okay. Kadib waxaad dhahaysaa okay. Sawirkii hadda wuxuu isku beddelay sidii YouTube thumbnail oo kale. Haddii aad doonaysid inaad wax ku soo darsato balaastas kor inta ayaa taabanaysaa from gallery aad dhahaysaa haddii aad inaad wax ku darto aad hadda waxaan soo qaatay YouTube app oo ah PNG. Okay. Kadib YouTube app markaan soo qaatay plus ayaan taabanayaa text ayaan taabanay kadib qalinka ayaan sii taabanayaa. Waxaan ku qoraynaa YouTube. Okay. Marka hadda background color-ka inaan bedelno ayaan rabnaa. Waxaad imaanaysaa meeshan labadan is dul saaran ah qaybta hoose. Kadibna color ayaad imaanaysaa. Color-kii aad rabto ayaad ka dooranaysaa. Aniga waxaan ka dooranayaa midka jaalaha ama orange-gada ah. Hadba waxaad color-kii aad jeclaysato ayaad ka dooran kartaa. Okay. YouTube app YouTube hoosteeda kadib waxaan ku sameynaynaa text qalinka ayaa taabanaysaa. Waxaan ku qoraynaa sida hadda waxaad imaanaysaa color ayaadna imaanaysaa kadib color madow ayaan ka dhigay. Okay, meeshan waxaa ku jira farta aad ka bedeli font-yaal badan ayaa ku jira. Okay, hadda qurux waay marka sida loo sameeyo. Kadib waxaad imaanaysaa qalinka ayaad imaanaysaa kadibna qalinka ayaad sii dooranaysaa sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Okay. Intaas ayaan ku soo darnay hadda sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Muhiim ah inaad hadda casharka aad si fiican ama aan u sameeyo balse wax muhiim ah inaad ogaatid inaad si fiican aad ugu samayn karto application-kan YouTube thumbnail. Thumbnail aad u qurux badan ayaad ku samayn kartaa. Application-ka
eedaas ayaa imaanayna kadib waxaan kasii dooraneynaa stroke ayaan kusoo dareynaa. Marka stroke badan ayuu leeyahay, kalarkaad jeclaysato waa kana hadda masha Allah qurux sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Haddii aad doonayso sawir kale ayaad kasoo darsan kartaa, plus ayaan taabanayaa from gallery ayaan okay. Hadda waxaan doortay mobile frame png ah, midkaas ayaad sameynaysaa. okay, haddana waxaan sameynayaa inaan dhex geliyo YouTube appkii mobile framekii aan hadda waday. okay asxaabta, waxaan la simayaa applicationka iyo YouTube appka ayaan isla simayaa, kadibna mobile framekii ayaan dhex gelinayaa. waxaana kusoo darayaa haddana text plus ayaa text qalinka ayaa taabanay mar labaad. waxaan qoraynaa adigoo isticmaalaya mobilkaaga. textiga hadda waan iska yareyneynaa, tt meesha ay ku qoran tahay ayaad imaanaysaa, kadib waad yareynay text. okay, color eeda ayaa imaanaynaa haddana text colorka adigoo isticmaalaya mobilkaaga. sidaan waxaad ku sameyn kartaa YouTube thumbnail aad iyo aad u qurux badan. fadlan haddii aad ka heshay videogan like saar, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. intaan ka kulmayna videogan videogiis saddexaad insha Allah, waxaan idin leeyahay guuleysta.